kadibna waxa soo wacaya telefonka ayuu qabteen waana ninkan waxa uu ku leeyahay xaaskayga ayaan dilayaa ee kaale ka soo gaar Maysonna waa uu soo ordayay ilaa uu gaarigiisii soo qaatay xaaskiisina waxa ay ku jirtaa suuliga wax wara uma hayso sida ay wax u dhacayaan suuliga ayay ka soo baxday kadibna waxay aragtay ninkan hortaagan waa ay naxday ilaa isku dayday inay cararto laakiin waa uu soo qabtay ilbaabkii ayuu xirtay Maysonna weli jidka ayuu ku soo jiraa laakiin si fool xum ayuu u dilay meel walba oo jirkeeda ka midana waxa uu ka galiyay mindi ilaa uu caloosha ka qaraacay isla markiiba booliiska ayaa yimi Victorna gacmihii ayuu taagay waxa yimi Mason oo ordaya waxa uu wataa baaskoolad waa uu naxay markuu arkay xaaskiisii oo dhig badan ka baxay waa uu ku dul ooyay ilaa uu gartay inay dhimatay kadibna ninkii ayuu baaskoolad madaxa kaga qabanaya booliiska ayaa oranaya ha sameyn wax sharci darro ah Mason aad ayuu ooyaya waana askari ka mid ah booliiska ma jabin kara xeerka isla markiiba ninkii ayaa la qabtay waxaana la geeyay xabsiga Mason waxa uu soo aasay xaaskiisii waxa uu qabrigeedii soo dhigay fiyoorahan gurigii ayuu ku soo laabtay aad ayuu u murugaysan yahay balse Mason waxa uu qaatay go'aan waxa uu rabaa inuu xabsiga ugu tago ninka si uu uga soo arguto qorshihi ayuu dhisay waxa uu diyaarsaday baaskooladiisii jidka ayuu soo qaaday waana habeenimo waxa uu yimi halkan kadibna waxa uu wacay booliiskii waxa uuna siinayaa locationka uu joogo isagoo u sheegay inuu rabo inuu qof dilo isla markiiba waa uu soo dhaqaaqay waxa uuna yimi gurigan waxa jooga nimankii gaangiska ahaa ee uu ka tirsanaa ninkii la xiray albaabka ayuu ku soo jabiyay kadibna mid ayuu u toogtay kan ayaa kule xaaskayga anaga dilnay isla markiiba madaxa ayuu kaga dhufay maalinimadii xigtay Mason waxa la keenay xabsigii uu ku jiray Victor waana qorshihii uu rabay inuu kaga arguto ninkii xaaskiisii dilay xabsiga ayuu soo galayaa isaga iyo tiim aad u fara badan waxa uuna fiirinayaa gidaarada aadka u adag ee xabsiga shuruudihii ayaa loo akhrinayaa xabsiga isla markiiba Mason waxa loo soo kaxiyay qolkiisii ninkan odayga ayaa loo keenay Victor ayaa arkay Mason oo qolkiisii loo wado waa uu fiirinayaa laakiin dan iyo xaaje kama leh ninkan oo xabsiga haysta ayaa u yeeray Mason waxa uuna ku leeyahay halkan fariiso way salaamayaan kadibna waxa uu sharaxayaa sharciyada xabsiga maalintii xigtay Mason iyo Victor way is arkayaan waxaana isugu imaanayaan qolka lagu cunteeyo isla markiiba Victor waa uu imaanayaa waxa uuna u hanjabayaa Mason isagoo u sheegay inuu xaaskiisii dilay Mason oo dharkiisii la laabanaya joogana laundry-ga ayaa soo weeraraya tiimkii Victor kadibna mid ayuu la dagaalamayaa waxayna rabaan inay dilaan balse waxa ka soo gaaray waardiyaha xabsiga oo ku qaylinaya dhamaantoodna waa ay kala cararayaan Mason waxa la keenay isbitaalkii xabsiga waxa uu ka soo baxay isbitaalkii halkan ayuu imaanayaa oo meesha lagu ciyaaro basketballka isagoo ay nabaro badan ay jirkiisa ka muuqdaan Mason waxa uu arkayaa Victor oo si kibir ah ku dilaya ninkan waxa uu arkayaa inuu yahay ninka xabsigan haysta cidda uu rabo ayuu dilaa Mason waxa uu imaanayaa qolkiisii waxa uu qaatay go'aan Victor waxa uu leeyahay tiim aad u xoogan waana inuu iyagoo dhan laayaa ninkan ayuu suuliga ugu soo galay waxa uu dhabar ka galiyay mindi waana Victor ciidamadiisii mid ka mid ah balse ugu dambeyn waa uu dilay Mason waana askarigii ugu horeeyay mar kale Mason waa uu soo dhaqaaqayaa waxa uuna imaanayaa halkan ninkan kale ayuu imaanayaa waxa uu afka ka dhufanayaa iskoobadii waa uu la dagaalayaa ilaa uu dhulka ku dhaco kadibna uu iskoobihii qoorta kaga qabtay waxa uuna rabaa inuu dilo Victor aad ayuu xanaaqsan yahay waxa uu imaanayaa saaxiibkii waxa rabaa inaan nafta soo dhaafisid ma raba inaan aniga iyo isagu is aragno saaxiibkiina waa uu ka ogolaanayaa Mason oo qolkiisii jooga ayaa la soo weerarayaa waxaana uu imaanayaa ninkii Afrikaanka ahaa waa uuna qaraacayaa laakiin Mason waa iska celinayaa waxaan iskula dhacayaan dhulka Mason waxa uu qaraacayaa ninkii Afrikaanka ahaa waxa uuna qaatay saxankii suuliga wuxuu rabaa inuu madaxa kaga dhufto laakiin booliiska ayaa ka soo gaaray maalinimadii xigtay Victor oo jooga qolka laundry-ga ayaa waxa uu arkayaa beebabkan waaweyn xagga sare waxa uuna ka soo furayaa birta ku xiran si uu isugu difaaco birtii ayuu soo furayaa waxa uuna ku qarsanayaa caloosha si uu ugu dagaalamo qolkiisii ayuu la yimi kadibna waxa uu ka furayaa boolashii waxa uuna ka samaystay bir aad u khatar badan oo ay ka soo jeedaan laba bool isla markiiba Mason waa uu soo dhaqaaqayaa waxa uu halkan ugu gabanayaa ninkan ilaa uu dhuunta feer kaga dhuftay kadibna birihii dhaadheera ay ka galeen dhuunta dhiig badan ayaa ka baxaya Masonna wuxuu ka saarayaa afka barkintan ilaa uu madaxiisii oo dhan u burburiyay ciidamadii ayaa yimi waxayna arkeen kiiskan meesha ka dhacay ninkii haystay xabsiga ayaa waxa uu yeerayaa Victor waxa uuna ku leeyahay ciidamadaadii mid ayaa loo laayay maxay tahay sababtu waxaan rabaa inaan ninkaas soo dishid aniga ayaa ku fasaxay dil oo nafta dhaafi in yar kadibna waxa uu yeeray isla Mason waxa uuna ku yiri waa kugu taageersanahay ficilada aad sameynaysid waa inaad Victor dishaa iyo dhammaan saaxiibadii mar labaad qolkii cuntada ayaa la yimi kadibna Victor waxa saaxiibkii uu tusayaa
inuu Mason halka taagan yahay. Victor waxa uu la soo baxayaa mindidiisii, waxaana uu soo dhaqaaqayaa si uu Mason u dilo. Mason waa uu arkayaa, kadibna askari ka mid ahaa ciidamadii ilaalada ayuu feer ku dhufanayaa. Askartii ag taagneed ayaa qabanaysa, waana fursaddii uu kaga badbaaday in Victor iyo isagu ay isdagaalaan maadaama uu mindi watay. Maalinimadii xigtay waxa uu imaanayaa ninkan ilbaabka ayuu u xiranayaa, waana Victor saaxiibkiisii u dhowaa. Kadibna gadaal ayuu ka soo marayaa, way isdagaalayaan, laakiin waa uu isdifaacayaa ninkan Afrikaanka ahi. Mason uma cadda waxaasi, waxa uu rabaa inuu nafta dhaafiyo, isagoo raba inuu dilo ayaa hal mar gadaal waxa ka soo maraya ninkan. Kadibna waxa uu ninka Afrikaanka u dhiibayaa mindi. Mindida ayuu ka qaadayaa ilaa uu xarig qoorta kaga xiray. Kuma aysan daahin, isla markiiba waxa uu ka tuuray saqafka sare, waxa uuna ku soo kordhacay ninkan askariga ah. Ninka Afrikaanka halkaas ayuu ku dhintay. Askarigii lagu soo kordhacay ayaa Victor qorigiisii u qaatay. Victor iyo Masonna waa isku soo socdaan, xabad ayuu ku soo tuuray ilaa ay ku dhacday. Ninkan askariga ah waxaa si toos ah isku arkay Victor iyo Mason, waa ayna isdagaalayaan, laakiin waa uu ka xoog weyn yahay Victor. Dhulka ayaa lagu dhuftay Mason, isla markiiba waxa uu qabtay xiniyaha, kadibna waa uu qayliyay ilaa uu markii dambe askarigii haystay xabsiga uu gadaal ka soo maray. Masonna uu ku dhuftay xabad. Ninkani waxa uu ku oranayaa Victor, baaskooladan qabso, dil ninkan oo nafta dhaafi. Isla markiiba Mason ayaa waxa uu sheegayaa in ninkan uu isaga u soo diray una yahay nin khaa'in ah. Halkii uu dili lahaa Mason, Victor waxa uu ku soo jeestay ninkii ilaa uu lugta ka jabiyay ninkii haysta xabsiga. Isla markiiba ilaalada xabsiga ayaa ku soo orday, waxa ayna qabteen Victor. Victor waa uu iska celinayaa mar labaad. Mason waa uu ka baxsaday isagoo xabadii ay ku taal, waxa uuna rabaa fursad uu ku dilo Victor. Ninkan askariga ayaa baaskoolad ku qabanaya, isla markiiba baaskooladii ayuu ka qaaday Mason, waxa uuna dilay askarigii. Halka Victor iyo ilaaladii xabsiga ay isku maran yihiin, mar labaad ayay iskaleen. Victor waxa uu ka qaaday Mason baaskooladii, waa uuna qabtay, laakiin waxa uu ka danqayaa nabarkiisii lugta ka soo gaaray ilaa uu Victor ka soo dhaqaaqay. Waxa uu imaanayaa askarigii xabadda uu ku dhuftay Mason, waxa uuna ku leeyahay si khasnada labaad. Askarigiina waa uu dhammaystiray. Victor waa uu soo dhaqaaqayaa, waxa uuna imaanayaa Mason oo dhulka jiifa. Madaxa ayuu xabad ka saarayaa, laakiin Mason waxa uu gadaal kala soo baxayaa mindidiisii afaysnayd, waxa uuna ka jarayaa qoorta ilaa markii dambe uu soo kor istaagay, xabadna uu u raaciyay. Halkaas ayuu ku dhintay Victor. Daawadayaal, filimkeena maanta halkaas ayuu ku soo gabagaboobay. Waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Tan iyo inta iskaga iman doono muuqaalka xiga, waxaan idinkaga tegi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.